بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسنا وعن ميل كستا أدونك جوجتان ولا ليك شرفت لا إله سبحانه وتعالى دنبجينا يدنبج والدكنا دافو maanta oo maalin jimco ah maanta oo aan ku guda jirno bishii barakeysneed ee Ramadaan walina ay tahay jimcadii ugu horeysay bishii barakeysneed ee Ramadaan nimcooyin fara badan ayaa mataqaanaa madaxa isgeliyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu bishan Ramadaan nabadna ugu dhameeyo caafimaadna ugu dhameeyo intii xanuunsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu caafiyo barnaamijka maanta waxaan uga hadli doonaa labo qodob oo muhiim ah qodobka koobaad waxay tahay qofka sooman ee maanta dhan soo soomanaa xilliga ugu haboon ayuu duceysanaya oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala baryaya ma afurka ka hor mise afurka kadib mise afurka asagoo cunaya ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala baryaya muxuusa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku baryaya طبعا دمانتين إذا كما قرصونا فضلك إلا ذا الدعاء يدعاء إنه تهي عبادة آدي أدوين إلهي سبحانه وتعالى نقول لي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي عني الدومد إذا مركي كاويديان فإني قريب وندوهي أجيب دعوة الداعي إذا دعان مركا وانو أجيبها كان إبريا هذا هو حلو بهاي إن الله سبحانه وتعالى لبريو qofka walaalayaal marka ugu haboon Ilaahay subhanahu wa ta'ala baryayo waxa weeye intuusan afurin wax yar ka hor maxaa yeelay xilligaasi naftiisa way gaajoonaysaa qalbigiisa Ilaahay ayuu ku xiran yahay wuxuu dareemayaa inuu cibaado ku soo jiray maanta dhan Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiisu soo soomanaa hadaba ducadaada halkaas ayaad ku aadisanaysaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa dambi dhaaf weydiisanaysaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa aad jeceshahay ayaad weydiisanaysaa haday dhibaato ku hayso inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhibaatada ka qaado ducooyinka ugu fiican oo lagu duceystana walaalayaal waxa weeye ducooyinka quraanka ku soo arooray ducooyinka nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday sidoo kale hadaadan awoodin af Soomaali ayaad ku duceysanaysaa waxa aad rabtid ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiisanaysaa دعوينك ugu fiican ee wax walba kulansado waxa kamid rabbana aatina fid dunya hasana wa fil aakhirati hasana wa qina adhaban nar hadaba qofka sooman ducadiisa wuxuu ku aadisanayaa intuusan afurin wax yar ka hor marka aad afuraysid maxaad ku duceysanaysaa dabcan waxa jirta duco khaldan oo daciif ah oo sax ahayn oo ay dadka badankiisa isticmaalaan ducadaasi waa dib ayaan u dhiganaynaa laakiin ducada saxda ah maxay tahay qofka markuu afuro laga rabo waxa weeye dhahaba ad-dam'u wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah aan ku celiyo mar kale dhahaba ad-dam'u wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah ducadaasi waa ducada saxda ah oo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay waxaa jirta ducada daciif ah oo ay dad badan akhriyaan dadka badanna internetka iyo meelo badanna la wareejiyo ducadaasi waxay oranaysaa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ducadaasi waa duca daciif ah duca sax ma ahan waxa kaaga fiican in aad qaadatid ducada saxda ah ee nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay oo macnaheedu yahay dhahaba ad-dam'u oonkii wuu tagay wabtallat al-uruq xididadii iyo wadnihii iyo calooshii iyo jirkii wuu kala dagay oo wuu qaboobay oo wuu waraabay oo biyo ayuu cabay wa thabata al-ajru insha Allah ajrkiina wuu sugnaaday insha Allah hadaba walaalayaal meel walba aad joogtaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigiina dhaafo Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin naxariisto bishan walaalayaal aan ka faa'iideysano waa bishii khayrka waa bishii quraanka hadaadan quraanka akhrin karin dhageyso تسبيح دبدي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله حتى قبلها ديقة قبا وحلو بهاي إن القرآن كأخرستان إن إلهي سبحانه وتعالى حسان إن إلهي سبحانه وتعالى ودوادان ولا ليال بلان كأنه وحوي سيدان وقف إيدي سن لين بشان بركيسن محايا لي مؤجن سنة كدم بينا قاري دونه سيدو كلا الدعاء هلا أقادو إلهي سبحانه وتعالى ندم دافع لو وديستو أنا جنا سجارة وحن يدين كقعد سنة إن هديسو دعيسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.